mulkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa shaaciyay qiimaha rasmiga uu ku iibinayo kooxdiisa xilli ay sii kordhayso cadaadis kala saarayo maalqabeennada u dhashay dalka Ruushka kadib markii cunaqabateyn la saaray. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa suuq la dhigay kadib maalmo la hadal hayay in dowladda UK ay doonayso inay la wareegto mulkiyadda kooxda. xilligaas kadib waxaa isbedel sameeyay maalqabeenka kooxda Roman Abramovich oo 55 sano jir ah ayaa noqday mulkiilaha kooxda Chelsea sanadkii 2003 waxa uu tan iyo xilligaasi naadiga galiyay lacag badan taasoo guulo badan kooxda ay gaartay. bilowgii toddobaadkan ayay ahayd markii war-saxaafadeed uu soo saaray Roman Abramovich oo maamulka kooxda u gacan galiyay jamciyadda tabarucaadka Chelsea kuwaas oo uu sheegay inay sii wadi doonaan shaqooyinka iyo maamulka kooxda. isla markaana waxaa la warinayay warar ka soo baxaya magaalada London inay sheegayaan in madaxda lagu wareejiyay maamulka kooxda ay diideen. Abramovich waxaa saaran cadaadis ku aadan inuu iska iibiyo dhammaan hantida uu ku leeyahay dalka UK. waxaa jira soo jeedino ah in isagii hantidiisaba ay xayraad la saari doono waxana uu doonayaa inuu dhaqdhaqaaq sameeyo ka hor inta aan talaabo laga qaadin. dhinaca kale dowladda UK ayaa weli ku howlan nidaaminta cunaqabateynta iyo nooca hantida ay shakhsiyaadka Ruushka u dhashay leeyihiin ee la xayirayo ama ay dowladda la wareegayso waxaana safka hore kaga jira Abramovich oo ay saaxiib dhow yihiin Vladimir Putin. inkastoo Roman Abramovich uu beenayay inuu wax xiriir la leeyahay madaxweyne Putin haddana waxaa la leeyahay taasi kama fududeynayso culayska saaran xilligan waxaana ugu dambeyntii uu go'aansaday inuu iska iibiyo mulkiyadda kooxda Chelsea oo xilligan ku jirta kaalin saddexaad ee kala sareynta horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League. sida uu hadda shaaciyay wargeyska Telegraph ee ka soo baxay magaalada London, Abramovich ayaa si rasmi u go'aamiyay inuu iibiyo kooxdan uu 19 sanadood mulkiilaha ka ahaa waxaana uu sidoo kale shaaciyay lacagta uu ku iibinayo. Roman Abramovich ayaa sheegay qiimaha rasmiga uu ku iibinayo kooxdiisa taas oo ah 2 milyan oo gani iyo dheeraad ah. isla wargeyska waxa uu sheegay in Chelsea lagu iibinayo 4 milyan oo gani waana qiimo aad ugu sareeya intii hore loo filayay. kooxda difaacanaysa koobka Champions League ee bishii horena ku guuleysatay tartanka naadiyada dunida ee FIFA Club World Cup ayaa haddii lagu iibsado lacagtan waxay noqon doontaa kooxda ugu qaalisan abid ee lagu iibsado lacag intaas leeg.